الله يعيشك بس. waxaan aan kor taaganahay oo dhalooyinka ku jiro khamrada ah lagu riday oo la waafajiyay sharciga ku laabanayo laakiin waxaan rabnaa inaan ummadda u sheegno waxaa dhammaaday dagaalkii aan ku jirnay wejigiisii koobaad wejiga argagixisada oo hal sana iyo xoogaa aan wadnay waa soo gabagaboobay laakiin hadda waxaan bilaabaynaa wejigii khamrada iyo daroogada iyo maandooriyaasha kala gadisan waxaan u samaynay rug ciidan iyo xarumo la dagaalanka khamrada la yiraahdo sida anagu u samaynay xarumo argagixisada waxaan u abuurnay ciidan cusub oo aan u samaynay ciidamadana waxaa la rabaa in ay ciidamadaas aan samaynay dadku inay la shaqeeyaan oo meesha khamro ku arkaan u soo tilmaamaan oo gurigii khamro lagu gada ay soo sheegaan oo alkoloysta meesha wax ku fuuqsanaya la soo sheego ciidamaduna waxay amran yihiin magaalada ama gobolka mudug oo dhan meel kasta oo khamro lagu hayo shaqadoodu waa inta kaliya shaqo kale oo dawladeed oo loo diriyo ma leh xarun baa loo sameeyay waa ciidan ku filan inuu maaragtay hawshaas uu guto gurigii khamro lagu sheego iyo meeshii lagu gadayo iyo meeshii alkoloystayaal ku cabiyo lagu sheego intaba inay galaan waxaan dadweynaha u sheegaynaa haddii ciidanku meesha intay hawlgal ku galaan xabad looga rido waxay amrayeen inay isku difaacaan alkoloystii ay ku soo dilaan aan loogu iman ilaa ciidanku gurina waa geli karaa meel khamrana waa geli karaa masaajidna waa geli karaa meel la meesha ciidanku galaan cidii xabad ku ridaa haddii ciidanku inay iska dhacshaan ku khasban yihiin marka waxaan uga digaynaa alkoloystow haddeeraa waqti haysataa baashaa ka dul dhaqaaq ha ku dul dhiman cid kaa daba imanaysaa ma jirto haddii awal la iska daba iman jiro reero ordaya la heli jiray oo halkaana nin shariifa lagu dilay oranaya waa soo xiray albaabka odayaasha iyo dadka waxgaradkaana waa la tashan taladoodu waxay ku dhamaatay wadanka khamrada ka dhameeyay taladoodu waxay ku dhamaatay alkoloysta hadaadisaan idima haysano sababtu waxa weeye alkoloystu hadduu wax dilo dawladdu uma haysato qabiil hadda kan la dilay oo ninkii sharafta lahaa oo askariga ahaa oo amniga sugayay oo wiilkii baariga ahaa oo shaqadii loo diray hayay ah isaguna wuxuu ka dhashay meesha alkoloystu ka dhashay meel kale kama iman annagu askartaan wadana ruush iyo Bangladesh ma aha waa dad u dhashay deegaanka oo reer Puntland askari Puntland baan wadanaa tuug Puntland u dhashay ama alkoloystu u dhashay qabanaya qabiilkii askariga dhintay oo waxa fiican haya markuu dhinto oo tuugaasi dilo oo iman mayaan laakiin waxay u imanayaan markii alkoloyste la dilo ogaaday hadda kii sharafta lahaa way kaad maaragtay dhigiisa hadur ka dhigteen kii la rabay in dhigiisa hadurka laga dhigana waxaad ka dhigteen shariif ciidamadu waxay amran yihiin meel kasto ciidanku hawlgal u galaan noocay rabtaan noqoto cidii xabad uga rida wajiga inay ku dhuftaan hal qof iyo hal qabiil oo noogu iman karaana ma jiro waxaana bilaabanaya hawlgalkii oo ah mid dhammaystiran oo habeen iyo maalinba ah oo alkoloystayaasha iyo daroogada looga suulanayo wadanka annaga kama ogolin argagixiso kama ogolin alkoloyste kama ogolin kufsade kama ogolin mobil la carare kama ogolin caruur wax tuuriyaysa kama ogolin fidma abuure kama ogolin qabyaalad sameeye intuba waa argagixiso waana baalaha argagixisadu ku duusho sababtu maxay tahay argagixisadu waxay ka shaqaysaa meesha fidma ka jirto meeshii wax ka qariban yihiin oo wax laga qaribo meeshii khamro laga abuuro meeshii qabyaaladu ka bararto meeshii mobilada laga furto meeshii qassi walaaq ka jiro annaguna ayaan daba soconnaa ayagiiba hadda waxay isu rogeen inay khamriilaash ku biiraan waxa khamriilaash ka shaqaynayaan ayaantan waa argagixisada ficilkeedii baabuur dhicid baan ayaantan dareennaa baabuur qofkii dhaca
oo ciidanku ay intuu hawlgal ka fuliyo isku day inuu xabad ku rido wajiga ku soo dhufto hal qof oo nooga iman karaa ma jiro idinkana laydima haysto waxaan rabnaa ciidamada in lala shaqeeyo shacabow ciidanku idinkay habeen iyo maalin idin shaqaynayaan nabadda aad maanta gaalka ku haysataanna ciidankaasaa keena ilaahay ka sokow waxaa la rabaa inaad ciidanka la shaqaysaan baarina u ahaataan ciidanka oo khaa'imkan xuna khamrada cabaya oo waxaas qurunka raba inuu gabdhaha iyaga iyo wiilashayada siiyo oo raba inuu magaalada fasaadso barbar ka mid oo magaalada wax ku dhaco oo meel ka mid ah magaalada ay noqoto seera ay iska baleeyeen oo aan loogu gelin annagu yeelmayna idinkuna ha yeelina dadweynaha waxa laga rabaa inay ciidanka si buuxda ula shaqeeyaan soo sheegaan khamrada ciidankuna waxay amran yihiin tallaabo alla tallaabada ku xallin karaan inay qaadaan wax alla wixii soo gaaran wax la idinkaga ma haysta idinku annaga isu kaayay daaya cidii waxa ka daba timaad